Assalaamu calaykum. Ha isdhiibin ee horay u soco. Dhammaanteen mararka qaar waxaan aragnaa qofyo guulaystay, kadibna waxaan isweydiinaa qofkan siduu guushaan ku gaaray. Laakiin wax yar kadib waan ka socnaa oo waan is-hilmaamsiinaa, annagoo ka baqayno fashil iyo in aan samayn weyno arrintan. Arrinta sidaas ma ahan. Qofkan guulaystay, fashil wuu soo maray, balse haddii aad wareysatid, waxyaalo ka daran fashilka ayaad kala kulmaysaa. Laakiin ma ahan qof isdhiibay. Ha isdhiibin ee horay u soco. Inaad guul xaqiijiso waa arrin yara adag, balse ku fakirka inaad guulaysato aad ayay u sahlan tahay. Mararka qaar waxaan aragnaa qof guulaystay, kadibna waxaan dhahnaa arrintan uu sameeyey way fududahay, waana la samayn karaa, anagoon waxba ka ogayn caqabadaha uu la soo kulmay ama uu soo maray guushiisa ka hor. Taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha ka hortaga guusheena. Si aad u hesho dhiirigelin, warayso dadyow guulaystay si cadna u gaaray hadafkooda, kadibna ka qaado khibrado dhowr ah adigoo ku darsanaya khibradahaaga. Sidoo kale, haddii aad jeceshahay inaad guulaysato, ha hilmaamin inaad caawiso dadka kaleeto, maxaa yeelay caawinta dadka kaleeto waxay kaa saacidaynaysaa gaaridda hadafkaaga. Mar walbana waxaad la jeclaataa walaalkaaga waxa aad la jeceshahay naftaada. Xaasidnimada waa arrinta ugu horreysa ee keenta guuldarrada. Haddii aad naftaada la jeceshahay wax walba oo wanaag ah, kadibna aad u diiddo dadka kaleeta ama aad ka xasiddo, arrintaas ma ahan arrin fiican. Waxaan kaagala talin lahaa inaad arrimahaas oo kaleeta iska ilaaliso. Haddii aad doonayso inaad guul gaarto, marka ugu horreysa tala saaro Allah subxaanahu wa tacaala, adigoo xaqiijinaya guushaada, oona u sheeganaya arrimahaaga Alle in uu kuu fududeeyo. Waxaa xaqiiqo ah inuu Alle kuu rumayn doono riyooyinkaaga oo aadna gaari doonto guushaada.